soo dhaca adduunka dhan uu burburin doonaa dadkana dhammaan doono meel lagu sooma lama helay ramadaanka maba dhamaysanayno arrintaas maxaa ka jiro ma laga hadlo ma la dhimanaa dadkii rucbi iyo cabsi coronavirus iyadoo jirto ayaa dadkii rucbi iyo cabsi kale ku abuurantay arrintaas xaqiiqadeeda maxay tahay marka hore waxaan rabaa inaan dhaho intaan ka jawaabin su'aashaas adduunyadan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa gacanta ku hayo markay burbureysane ilaahay subxaanahu wa tacaala kaliya unba og calaamaadana jira ee ku burbureyso adduunyada 29 Abriil ma burbureyso anaa kugu dhaaranaya waana kuu sheega calaamooyin badanaa jirto oo aan weli dhicin mahdiyaa dhiman inuu soo baxo 7 sano joogaayo dajaalaa dhiman oo 40 maalmood oo maalinta koobaad sano ay tahay maalin labaadna bil ay tahay maalinta saddexaadna isbuuc ay tahay maalinta afraad maalmahan ay tahay sano iyo barkale meeshaasaa dhiman kadib nabiyullaahi ciisa soo baxay weli wax badanaa dhiman laakiin adduunyada dhamaashaheeda adiga markaa dhimatid aakhiradaada waa kacday rasuul sallallahu alayhi wasallam maalina uu yimid wuxuu ku yiri yaa rasuulallah mata saaca goorma waa qiyaamada nabiga sallallahu alayhi wasallam ninkii ayuu u yeeray markaasuu yiri maada cadadta laha maxaa u diyaarsatay qofka qiyaamihiisa waxay kicaysaa waxa waaye marka adiga dhimatid maalinta dhimad qiyaamahaaga waa ka qabriga lagu geliyo waa ku dhamaatay qabriga xayaatul barzakha galaysa kadibna ilaah hortaagan tahay marka cabsida badan haliiska daayo adduunyadan allah ayaa abuurtay waqtiyuuna ugu talagalay inay dhamaanayso qof walbo anaga naga midna waqtiyuu leeyahay uu dhamaanayo adduunkan rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri bu'ithtu ana wa saa'at kahatayni labadaas faroo kalo saasi isugu dhow yihiin zamanka wa aakhir zamaanka waa dhow yahay saa anaga wax xisaabayno iyo sidoo ilaahay wax xisaabay waa kala duwan yihiin saacada biri waa markii la dhahay birida miya mise biri kala waaye hadaba walaalayaal cabsidii walwalka la iska daayo walbahaarka la iska daayo ilaahay laga baqo oo beenta la sii faafinaayeen hal iska dhaafo waxa markaa faafinaysid iska hubi rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'a ama kafa bil mar'i kadiban qofka dambi ama been waxa ugu filan wax kasta ama qashid ina sii faafisid cilmi hadaa maqashid faafi dadka anfacay waxyaala adiga ogeyn ama dadka walwal u keenayo kala aadan adina ogeyn oo kala waxba ha faafinin hebela ii sheegay ha ku faafinin dambi iyo been intaas kugu filan taashina maanta u soo noqdo waxaan waxa soo gudbisay wakaalada NASA wakaalada oo Mareykanka oo xidigyada iyo qamar sinaaci ku takhasustay ay soo gudbisay waxay tiri 29 Abriil waxa soo mari doono dhagaxa soo mari doono xidig neysig leeyahay soo mari doono dhulkana waa ka fog yahay ish xataa lagu ma arkaayo microscope caadiga xataa lagu ma arkaayo meel foguna mara marka intaas waa intii un baa la qaaday mid ku sii daray xaliir waxay dhacaysaa saan waaye dhagax weyn waaye dhulku burburina qaara waxay dhinac raashiyo ku dhaca raashiyo dhana burburayso war absida haliska daayo dhagaxan ilaaha soo diray meel uu soo diray ma naqaano خلاص adiga taada ku mashquul cibaadadaada ku mashquul ilaahay ka cabsiga ku mashquul رمضان اسو دياري عبادة هذا كم مشغول إلهينا بري إنه كهنوني جزاكم الله خير بارك الله فيكم وحارجينا يا إن كليب كان لو قد بيه قف كستو عبسناي عبسن مجرتو هليز دجيو وسومينا قفكي نول وصوما أني أدينا قالي نما قالي لك قفكو إلى عمر سي وصوما الدنيا ذا نبي بربري سقال إلى باطن كأبرول أنا كوشيو على ماضيه نبي محمد كصلي صلى الله عليه وسلم وشيء أيادي من أول دعين marka isdaji hadii taada ku timaado laakiin waa tagaysaa teedii timaadan waa taga taas way laakiin adduunka dhan waa burburaysaa 20 bishii Abriil jazaakumullahu khayr barakallahu fiikum ilaahay subhanahu wa ta'ala hana wada xifdi meel walba aan joogno jiradan cudurkan Allah naga xifdiyo ramadaan Allah na gaarsiiyo allahumma ballighna ramadaan وأعنا على قيامه وصيامه وقراءة القرآن اللهم آمين جزاكم الله خير بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته